بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وإكران تهليل فارح قد الشيء وإكران تهليل فارح ولا الشيء قبل وانوش هاي waa muuqaal markii ugu horeysay ee iska soo duubtay Ikraan Tahliil Faarax iyada oo maalmihii u dambeysay aad loo hadalhayay lana sheegayay inuu qabo nin al-shabaab ka mid ah kaas oo ka soo jeeda dalka Pakistan daba waxaan idin la wadaagi doonaa muuqaalkeeda sidoo kale ta muuqaalo kale iyo walaasheed oo cadeysay inay nooshahay Ikraan Tahliil Faarax walow horay loo sheegay in Ikraan Tahliil la dilay oo nafta la dhaafiyay oo ay dhimatay sidoo kale tan la sheegay in Khalid Guhad oo ah Ikraan hooyadeed la sheegay inaysan ahayn bahooyadeed ee ahayd arrin siyaasadeed oo been abuur ay noqotay Fahad Yaasiin ayaa horay u sheegay inay dhimatay Ikraan Tahliil iyada oo hadalladaasi oo dhan ay qaarkood isdiidayaan waa ay dhimatay iyo waa ay nooshahay iyo waa uur ay leedahay balse waxaan idin la wadaagi doonaa muuqaalkeeda iska soo duubtay sidoo kale walaasheed oo cadeynaysa inay nooshahay hadba saaxiibayaal bal intaanan idin la wadaagin fadlan muuqaalka laag noo saar si ummad badan oo Soomaaliyeed u gaaro sidoo kale channelka Nasr subscribe saaro gomboleelka nafrasi kugu soo dhacaan warbixinada iyo muuqaalada aan halkan soo galino isku soo noqod wanaagsan saaxiibayaal sida hore idin kugu soo sheegaba waxaan idin la wadaagi doonaa muuqaalo dhowr ah kuwaas oo kala duwan oo ka hadlaya xaqiiqda dhabta ah ee Ikraan Tahliil walow maalmihii u dambeysay hadallo badan oo kala duwan baraha bulshada aad u hadalhayeen waxa kamid ah hadallada la isla hayay Fahad Yaasiin wareysigiisii oo ku sheegay in Ikraan Tahliil ay sabab nooleen ay dhimatay sidoo kale waxa uu sheegay inay afduubteen kooxaha argagixisada ah kadibna ay dileen walow uu hadalkaasi horay u sheegay oo uu la wadaagay hooyadeed balse asaga ayaa miidiyaha soo fariistay oo ugu dambeyn sheegay balse ummadan ayaa ka soo horjeesatay walow ay dadka dhan dhaheen asaga ayaa qarinaya walow ugu dambeyn baaritaan lagu sameeyay hay'adda Niisa oo urkacayay Fahad Yaasiin halkaasna lagu soo gabagabeeyay giiska Ikraan Tahliil balse hadda ay dib u soo laba markii Fahad Yaasiin uu sheegay in gabadhu ay dhimatay hadaba saaxiibayaal intaanan muuqaalka idin la wadaagin waxaad la daawatiin muuqaalka gabadha la dhalatay Ikraan Tahliil Faarax oo ka hadlaysa xaqiiqda dhabta ah Ikraan halka ay jirto iyo hadalladan isdhex maraya waxa ay yihiin Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Soomaali weyn meel walba joogtaan Soomaaliya horta ayaamahan waa aragteen barbagandada meelaha ka socda waxa gadaasheeda waa Ikraan Tahliil Faarax waa walaasheeda marka Soomaaliya dadkan ku qaraabanayo beenta iyo propagandada horta xagga dhiga waa idin ku soo laaban doonaa waqtigeeda igu yar tan oo waxaan ka dhawaajinayaa ninkii u sareeyay Nisa oo markii hore ka dhawaajiyay oo yiri gabadhan idihii yaa dilay Arsenal dishay oo yiri oo cidina ay ku soo beenaysay haddana ay ku soo beenaysay maamadana inta u tagtay yiri laba maalin warkaasna uu ka dabageeyay nin wariye ah oo u dhiibay xataa iyada oo wixin xaga dhig inta la iska daba rafanayo juun hal sano ay noqotay halkii sano maxay dhashay inuu baxo xilka markii laga qaaday meel walba oo galay xildhibaan uu raaday si walba oo yeelay xil uu ku gobado maxkamad aan lagu saarin uu raadiyay waa uu noqonays waa baxay wuxuu tiri Turki wuxuu yiri mahad iyo ra'iisul wasaaraha loo haystaa gabadhaas okay waa joogtay Nisa u sareysay mahad macaarado ahay waa ka soo horjeeday binaanka u taagnay gabadhan inuu dilaa ogeed Soomaa waa keeni lahayd waxa dhihi lahayd waa kana ninkii gabadhii uu dilaysaan waay gabadhan ma haystaa dhin cadeymana keen lahayd ilaa cadeyma haystida waa cararto waxa tiri Turkiga tagay soo dadacis marka waxa istiri cidaan hadii dhahayd gabadhiina mahada dilay ama xagga aadayaan kiiskan adiga saas ugu dhuuma istiri taas kaama harin horta taas kaama harin cadeymana ka rabnaa xagga noo dhigtaas tan kale oo social media ku soo dhaxteynay sidoo nimanka baahan inta lacagta soo siiso cirada leh oo dhahaya Ikraan hooyadan ma dhalin Ikraan hooyadeed lacag ay qaadatay marna qaali waxa leedihiin lacag ay qaadatay fiiri carabkiina 20 ah marna waxa leedihiin qaali maxamed lacag ay qaadatay marna waxa leedihiin maxay ahaatay ayada ma dhalin oo hooyadeed gabadha Mandheera joogta oo Mandheera ku dhalatay leedihiin oo Mandheera maxay ahaatay aabeedka shaqeyn jir horta adeerkay Mandheera kama shaqeyn waligiis kama shaqeyn Mandheerana kuma dhalanin Ikraan Mandheerana hooyadeed ma joogto runta idin sheegaa ma kasteen qaali maxamed guhaada dhashay gabadhan ma kasteen laga soo hoos qaaday marka tan kale idinku mara abaabinayo shicibo adeer tahliilna weligiis Mandheera kama shaqeynin mid kale idinku mara abaabinaya marka raba
gabadhan waa nooshahay waxaa laga wata ma fahanteen idinka weli ma fahanteen arrintaa waxaa laga wata waxaa la rabaa ikraanaa nool markii la dhaha dadkii dhan inay xagga ku yaacaan la farxo ikraanaa nool xaggay jirtaa xaggay joogtaa ninkan kiiskiisa dhan oo goosgoos ka dhigta musalsalkii xumaaye oo ninka kasoo dadeynayay uu rabaa inuu anaga hadda waxay ila tahay inaad muuqaalkaas soo daawatay wax badan oo barnaamijkan kaaga qarsoonaana aad soo aragtay oo aad soo fahantay haddaba waxaa la la'yahay xaqiiqda dhabta ah walow Ikraan Tahliil ee muuqaal iska soo duubtay iyadoo dhehaysa waa noolahay waa arrin aad u yaab badan waxaa jirtay muuqaal baraha bulshada aad loo hadlayay kaasoo ku saabsan gabadhan iska soo duubtay ee sheegaysa inay Ikraan Tahliil tahay haddaba waxaad ila daawatiin muuqaalka gabadhaas bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Ikraan Xuseen Faarax u dhalatay deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Qoraxay ku sugan degmada Shilaabo walaasha Ikraan Tahliil Faarax oo magaca iyo ka awowga iyo magaca Ikraan baan wadaagno gabadhaas oo la isku lifaaqay sawirkeeda Allah naxariistay sida la sheegay ay dishay al-shabaab waxaan tacsi u dirayaa ummadda Soomaaliyeed iyo faamilkeeda qaraabadeeda ugu dhowba maadaama sawirkeeda la isku lifaaqay waxaan ka codsanayaa ummadda youtuberada cid kasta oo social media isticmaasha wariyaasha bajajka caanka ah BBC-da kulli inay ka saaraan sawirkayga maadaama aan ahayn gabadha dhimatay ahayna Ikraan Xuseen Faarax gabadha dhimatay Allah naxariistay tahay Ikraan Tahliil Faarax waxaan u sheegayaa dhammaan inta isticmaashay sawirkayga maadaama aan ahay gabadh qurba jooga ka timaaday Ingiriiska waxaan codsanayaa maadaama caqabadii ku keeni karto sawirkayga la isticmaalay in laga saaro baraha bulshada raaligelinna laga bixiyo si waliba degdega caqabadu waxaan u maleynayaa inay ka timid maadaama aan anigu Ingiriiska ka yimid ayaduna Ingiriisku tagtay in caqabada keentay in la isku kaana khaldo ay tahay midaas baan u maleynayaa waxaan si naxariis looga codsanayaa cid kasta oo isticmaashay sawirkayga inay ka saarto waxay ila tahay guud ahaan barnaamijkan waa soo daawatay sidoo kale ta muuqaaladii aan idinkula wadaagnay haddaba waxaa jirta barnaamijkan inuu noqday barnaamij aad loo hadalhayo sidoo kale tana ay noqotay Ikraan Tahliil mid qof walba uu la yaaban yahay halka ay ku dambeyso dadka qaar ayaa waxa ay leeyihiin waa ay nooshahay oo waxa ay ku biirtay kooxda argagixisada ah oo waxa qaban nin ka mid ah kooxdaasi dadka qaarna waxa ay leeyihiin ma noola oo waa ay dhimatay xaqiiqda ayaa waxa ay tahay inaysan gabadhanin nooleen oo mar hore cadowgani ay dileen naftana ay dhaafiyeen walow cadowgan argagixisada ah kaliya aan looga baqayo inay dileen kooxda Fahad Yaasiin uu watay ee Niisa haddaba waxaan idin wadaagi doonaa wixii ka soo cusboonaada iyo xaqiiqda dhabta ah annagoo mar walba u gurgeli doona xaqiiq dhab ah sidaan idinku keeni lahayn haddaba saaxiibayaal muuqaalka leeg noo saar sidoo kale taadee tahay booqashada ugu horeysay ee channelkana soo booqato fadlan subscribe saaro gomboleelkana furo si ay kugu soo dhacaan muuqaalada iyo warbixinada aan halkan soo gelino waadna ku maasantahay daawashada muuqaalkan daawatinta ku kulmi doono muuqaalka xiga sida iyo nabadgelyo